الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي لبي طبناد هي كتاب كان مفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم رحمه الله وحن كجرنا قيبتي اسبربر لقى علمك إيا مالك وحول الشيخ ابن القيم رحمه الله مالك غنى المال قفك مالك إلهي سيي wuxuu mar walba ku sugan yahay khoof iyo xusn xoolihiisu u baqayaa armay ka baaba'aan armay ka khasaaraan murug iyo xusni maanta waxaasaa khasaaray marka waa xasiin intuusan xoolaha horta weli helin waa murugaysan yahay xaguu xoola ka helaa murug buu ku jiraa haddana khaa'ifun bacda xusuuli markuu helana wuu u baqayaa armay kaa dhumaan armay kaa khasaara marka isaga dhan noloshiisu waa sidaa wa kullama mar kasta oo xoolihiisu sii bataana ولو فيرس وكلما خوف كيس يعبسيدي حوله وبقي أي سيبضته إلا قف إلهي سبحانه وتعالى ويسوء جرجاري أو حوله السجوله أو حوله أين لهين وإلهي جعنتي سجلي أو قلبي يسوون الجلين وكل الله إن حوله إلهي قلبي جاي جليو ين إلهي جعنت هذا جليو هذي جعنت هذا كل جرا بحين كرتا ومضى وحكسين لكن قلبي هذي كاجي جرا وجعله قلبي لجو جليو وحوي ما بحين يصير وان كوها لك سميسه haddaba غنى العلمي laakiin cilmiga qofka ilaahay غني kaga dhow ilaahay cilmi uu baray maqruun بالأمن والفرح والسرور isaga ilaahay wuxuu siinayaa oo qofka mar walba uu ku sugaya amni nabadgeliyo farxad reereyn cilmiga ilaahay subxaanahu wa tacaala marka wax xoolo u baqaya meesha ma joogo cilmigiisina wuu ku farxayaayo amni buu haystaa iyo farxad iyo suruur أن الغنى بالمال قفك حولها غنية كوه وحالي هذا وعين فقر النفس نفتادو فقر بيدريميسا بلوفيسو إلهي حول بدن بكسي حول ترى بدن أيو كسي وحالي شيء وضمدني أوكله رجال بدن لها أو ماركت إلهي إنت صبقل أو حلال لها بمالي وحالي الزكاة الله بحيو markaas hadee qaalmihii geeli la soo guray 4 jiro oo 5 jiro oo qurux badan markii la soo ururiyay ayaa wuxuu iga sii daayay kuwaan bixin maaye markaas la yiri geelu naarta markii qofka aan zakada bixinin geelu waa ku tumanaya oo waa ku istawar aniga igu tunta duu rabe faraha ka qaaday uu inay heblaad maanta iyadoo soo dhowraysa bixin maayo sidaas oo kale waxa anigu arkay oo xusuusanin geel badnaa isaguna oo aad u geel badnaa oo kabala kabiya ay ka go'een oo kabna gacanta ku sii tag midna qaba oo in geelisana taqriiban boqolaal ayuu dhanaa marka noloshaas marka qaarkood ku sugan yihiin alghina laakiin qofka ilaahay cilmiga uu siiyay waana ghaninimada xaqiiqada ah waa midda cilmiga ilaahay subxaanahu wa tacaala taasaa ghina la yidhaahdaa haddaba man qudima wa ukrima limaalihi u fiirso qofka loo soo hormariyo meel ama la karaameeyo la maamuuso xoolihiisa darteed haddii xooluhu ay dhaafaan qiimihiisa wuu tegi karaamadii uu lahaana way dhammaan laakiin qofkii meel loo soo hormariyo ee la karaameeyo la maamuuso cilmigiisa dartii wuxuu sii ziyaadsanayaa taqdiim iyo ikraam mar walba in la hormariyo iyo in la karaameeyo la sharfo tusaale ninku markuu hadda maal qabeen yahay umada waxa la yiraahdaa dadka waxa marka qaar ilaahu mudoqon xitaa ahaado haduu ninku reerka ugu xoolo badan yahay isaga ugu aqli badan hebel inoo geeya meeshiisa lagu shiraya meeshiisa la soo wada iman umada isaga marka awaamirta kala siin wal ninku ugu doqonsanaawe laakiin ilaahay baa xoolo ku soo xoolahaas ku cabiidsada umada saas ku leeyahay laakiin haday xoolahaas dhaafaan qofna qiimo dambe u yeelmaayo karaamana male meel fadhiisin iyo xagga soo marna male laakiin ninka cilmiga ilaahay siiyay ee sheekha ah mar walba isagoo ka takriimkiisa uu haysta iyo karaamadiisa xoolaha ninka ilaahay uu qani kaga dhigay wuxuu ka baqayaa inuu dhinto wuxuu ka baqayaa inuu alla la kulmo maxaa jira jacaylka xoolaha uu u qabo baa waxay keenayaan inuu noco inuu xoolaha ka tago waxay keenayaan inuu mar walba jeclaado inuu joogo haajir wuxuu isleeyahay waxaan ka dhex tagin nimcadan aad ku jirto laakiin cilmiga qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala oo baray isagu wuxuu jecel yahay liqaha allah inuu allah la kulmo ayuu jecel yahay inuu rabbi la kulmo ayuu isagu jecel yahay wuxuu maartay adduunyada uu ka zaahidayaayo jacayl adduunyada ma helaayo
arrinta labaatanaad oo ibnu qayim uu kusoo khatimay isbarbardhiggii cilmiga iyo xoolaha wuxuu yidhi ana alaghniyaa yamuutu dikruhum bimowtihim waalculamaau yamuutuuna wayaxyaa dikruhum. aghniyaa nimanka maalqabeenka ah dikrigooda iyo sheegsheegooda wuxuu ku dhammaadaa dhimashadooda, laakiin caalimka way dhintaan culimadu, wayna dikrigooduna wuu sii jiraa. oo sheekhii hebel ahaba, tusaale ninkii xoolaha lahaa ee maalqabeenka ahaa ee ummadda wada shaxaadi jirtay, ee markuu dhinto hadalkiisa wax sheegi ma maqashay, qofna ma ka maqlaysaa. xoolihii waa la dhaxlay, dad kaloo laga yaabay inayna xitaa isaga ku xamdinaynin baa ka qaatay, laakiin culimadii ilaa asxaabu rasuulillahi sala allahu alay wasalam, alambiyaa walrusul walculamaa walsaxaaba waltaabicuun, hebel baa xata alculamaa almadaahib alarbaca maalin walba